gelinkii dambe ee maalinimadii shalay ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay halka ay taalgoogasho wada tashiga beelaha deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ee Khaatuma laba magaalada taariikhiga ah ee Taleex wafti heer sare ah oo ka soo kicitintay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waftidan oo uu hogaaminayay Garaad Cabdilaahi Maxamed Guuleed hadaba ka horintii aanay waftidan soo gaadhin magaalada taariikhiga ah ee Taleex ayaa inta badan bulshada ku dhaqan magaalada Taleex ay kaga hortageen meel ka baxsan magaalada si ay halkaasi ugu soo dhaweeyaan waftida ergada ah ee reer Ceerigaabo uga qayb galaysa shirweynaha Khaatuma laba soo dhaweyntaasi kadib ayaa waxa waftigii loo soo galbiyay gudaha magaalada Taleex si loo geeyo hooygii ay amaba halkii ay ka degi lahaayeen magaalada sidoo kale wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd waxaan runtii halkan uga maaragtay mahad celinaynaa sida fiican ee qiimaha leh ee naloogu soo dhaweeyay deegaanka ama degmada Taleex iyo madasha uu ka dhacayo shirka Khaatimo kaas oo aanu maaragtay soo ajiibnay isagoo aanu ka mid nahay beelaha gogosha dhigay halkan hadda waxa maraya ergo badan oo gobolka Sanaag ka tirsan iyo beesha Naalaye Axmed oo iyada lafteedu aan ka marnayn oo gobolka Sool ka tirsan intaba marka waxaanu leenahay insha Allah ta'ala shirkaasna kiimira dhala oo wax ku ool noqda oo la isku afgarto oo Ilaahay dadka isugu soo jeediyo inuu noqdo baan ugu ducaynaynaa subaxnimadii saaka ayaa si diiran waxa magaalada Taleex loogu soo dhaweeyay wafti kale oo ka soo kicitintay degmada Karin Karfood waftigan oo sidoo kale iyana uu hormuud u ahaa ugaas Faarax Dheere waxa tan magaalada taariikhiga ah ee Taleex si aan kala hadlahayn ugu soo qulqulaya waftiye kala gedisan oo ka soo kicitimaya daafaha dunida iyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale shacabka reer Taleex ayaa iyana diyaar u ah sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen idilaahanba dadweynaha kala gedisan ee ku soo qulqulaya magaalada Taleex iyadoo ay haatan magaalada Taleex la circirayso dadweynahan cadadkooda la qiyaasi karin sidoo kale waxa Taleex haatan ku sugan guddiga loo yaqaan Group 6 oo dhawaanaanba degmada Taleex laga sugayay inay soo gaaraan isla mar ahaantaana ayaamihiina soo dhaafay si diiran loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Taleex isku soo wada doobo shirka wada tashiga beelaha Sool Sanaag iyo Cayn ayaa la filayaa inuu ayaamaha fooda inagu soo haya ka furmo gudaha magaalada Taleex Maxamuud Salebaan Somalisat Taleex